وهربت إنا بلوضو يوتيوب هذا واحد نقبتهاي كاميرا هورتيدا إنا سو استاغتو أما بواحد أماليسا دادكا guuleysto kaliya inay yihiin kuwa wejigooda soo dhiga ama face based ka ah. So video waan maanta waxaa isbarbardhig dhab ah ku samayn doonaa faceless YouTube channel iyo face YouTube channel. Anagoo qayb kasta u qaybin doona 4 qaybood oo isku mid ah. Kuwaas oo kala ah trust, privacy, simplicity iyo scalability. So video waan dhamaadkiisana waxaad ku ogaan doontaa midka kugu habboon iyo midka aan u galmin ina waqtiga geliso. Aan ku bilaawno marka hore faceless YouTube channel. Noocan waxa uu ku ogolaanayaa inaad aqoontaada ama farshaxankaaga la wadaagto adduunka adigoo qarinaya facekaaga ama wajigaaga. Laakiin marka la dhaho trust ama aaminaad ama kalsooni way ku tiirsan tahay kaliya content quality iyo consistency. Mana jiro qof la aamini karo mawduuca aad ka hadlayso ama value-ga aad soo gudbinayso kaliya ayay dadka aamini karaan. Marka la joogo faceless trust ma jirto qof ku aamini karo malaha aan soo gudubno lambarka labaad oo ah privacy. Marka la joogo faceless YouTube channel ama faceless content creating waxaad si buuxda u haysataa amnigaaga ama noloshaada gaarka iyo nolosha caadiga internetka si buuxda ayaad u kala fogeysay. Taasna waxaa dhihi karaa faceless-ka ayaa ku fiican dhanka privacy-ga oo noloshaada gaarka iyo nolosha internetka way kala fog yihiin. Haddii aan soo gudubno lambarka saddexaad oo ah simplicity midkan aad iyo aad bay ugu adag tahay marka la joogo face based content because of waxaad u baahan tahay editing ama b-rolls aad banaanka ka keentay ama sawiro si aad u muujiso waxa aad ka hadlayso. Markaan fiirino lambarka ugu dambeeya oo scalability tani aad bay u fududahay inaad shaqadaada dadka kale la wadaagto ama ay ku qabtaan shaqadaada. For example ina ID keento kadibna scriptiga dadka kale ay ku soo qoraan ama ay si fudud ku edit gareen sababtoo ah kuma qasbin ina video soo duubto. Challenge-ga ama caqabada meesha taalo waxa waaye maadaama ay tahay faceless waxaad si weyn ugu baahan doontaa inaad samayso thumbnails ama titles aad u awood badan si aad u soo jiidato indhaha dadka halka face channels-ka ay ku kalsoon yihiin wajigooda. Markaan u soo gudubno qaybta labaad oo ah face channels ama face based channel tani way ku qasbaysaa inaad kamarada soo hor fadhiisato si aad u dhisto personal brand ku gaar ah. Okay, markaan fiirino trust-ga daawadayaashu waxay si degdeg ah ugu hirmaan qof bani aadan ah oo ay u muuqato wajigiisa iyo codkiisa. Trust-ga marka la fiiriyo waxa ka dhaqso badan ama ka fiican face channel-ka ama marka la fiiriyo faceless-ka face-ka ka fiican trust-ga. Aan u soo gudubno lambarka labaad oo ah privacy. Marka la joogo face channel waxaa si buuxda u weyn kartaa privacy-gaaga ama anonymity-gaaga because of dadku waxay aqoonsan doonaan meesha aad ku nooshahay dhaqankaada iyo noloshaada caadiga ah. Aan soo gudubno lambarka saddexaad oo ah simplicity. Tani way aad ugu fududahay marka la fiiriyo faceless channel. Waxaad si toos ah u duubi kartaa video-gaaga adoo hadlaya taas oo si weyn u yareyn karta waqtiga editing-ka sababtoo ah uma baahnid b-rolls badan. Markaan soo gudubno lambarka afraad oo ah scalability tan way ka adag tahay marka la fiiriyo faceless because of waxa adag in la outsource gareeyo sababtoo ah waa personal brand-kaaga marka growth-kana wuxuu ku yiran yahay awooddaada shakhsiyadeed. Challenge-ga dhabta ah meesha taalo waxa waaye inaad u baahan tahay inaad dareento dhiiranaan markaad kamerada soo hor istaagto iyo inaad diyaar u tahay inaad noloshaada la wadaagto dadweynaha. Okay, decision-kaadu muxuu yahay ama midkees leedahay waa dooran kartaa ama waa uu kugu habboon yahay. So anaa kuu sheegi doono haddii aad xishood ka qabto inaad kamerada soo hor istaagto ama social anxiety aad qabto inkastoo aan ku dhihi lahaa no one cares ama qof ku keergareeyo ma laha laakiin waxaad ku bilaabi kartaa faceless channel. Laakiin haddii aad rabto inaad dhisto personal brand ku gaar ah sidoo kalena dadka kugu raacaan dadnimadaada waxaad dooran kartaa face channel. Sidoo kale haddii aad haysato wax yar waqtigaagan uu badan yahay waxaad bilaabi kartaa faceless channel because of waxaad haysataa waqti badan aad ku outsource garayso ama research ku samayso si aad u samayso faceless video. I mean midaan waxa ula jeedaa haddii aad haysato for example PC aad haysato ama telephone yar aad haysato ama aad heli karto microphone yar sidoo kalena aad aad ahaan u adeegsan karto AI waqti badan aad haysato waxaad samayn kartaa faceless channel. Laakiin haddii aad rabto trust degdeg ah waxa kugula talin lahaa inaad doorato face channel oo aan ogahay inuu ka dhaqso badan yahay marka la fiiriyo faceless channel-ka. So aniga ahaantayda taladaydu waxa waaye face-ka ayaa ka dhaqso badan marka la fiiriyo faceless channel. Inkastoo sometimes ay ku yiran tahay sida topic-gaaga uu trend u yahay ama topic-gaaga demand-kiisa u badan yahay. So video halkan ku soo gabagabayn doona waxa ka codsan lahaa inaad channel-ka soo subscribe garayso haddii aad wax uun ka faa'iiday sidoo kalena comment-ga aad ku soo qorto midka aad dooran lahayd. So si aysan ku dhaafin video-ga soo socdo channel-ka soo subscribe garay. Peace.